أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وجمال. إن شاء الله هذا مدان وأسكدي الجرينينا delete هرتا clear عنده هنا أنت waxaan sameynaa insha Allah kow waxaan ku bilaabaynaa npm because waxaan rabnaa markii oo cuyub markii sameynaa magaceena iyo license-keena inuu la socdo aan rabnaa oo noo diyaarsan npm markaa dhahdid waxaad sameynaysaa config ayaa dhehaysaa config waxaa waaye configuration waxa baa bedelaya camad waaye set ayaa dhehaysaa set waxaa waaye waxaan ayaan gelinaya ama set up ayaan sameynaya ka bacdi init ayaa dhehaysaa initka waxaa waaye initialize wax baan sameynaya ama wax baan ku bilaabaya yani markii wax ku bilaawaysid okay bacdeen waxaad rigmadan ayaa dhufanaysaa rigmadan waxa u sheegaysaa ko magaca oo authorka ayaan rabaa inaan bedelo magaca init author aan dhehna bacdeen rigmada kaleete name magaca oo author nameka ayaan bedelayaa ka bacdi labadaniti oo string ah gudihiisa ayaa waxaan gelinayaa Jamaal Xasan markaan geliyo horta weynay si oo aragno okay Jamaal Xasan markaan geliyo waxyar waxaan baanaynaa si fiican aragno markii Jamaal Xasan markaa saas u geliyo waan ka soo baxaya markaan ka soo baxo enter aan dhahayaa enter markaan dhaho wax ma noo sheegayo inaan wax gelinay inaan wax sameynay dhan ma noo sheegayo because of waxa weeye magaciisa waxyaal qaarkiisa dhibaatadan in case dib maahan laakiin haddii rabnaa ogaadina wax ku bedelay waa inaad isticmaashaa npm config get aan dhehna bacdeen waxaan ku xijinaynaa sida hadda u qorayno oo u qornay camad ayaan u qoraynaa oo waxaan rabnaa inaan ogaano nameka oo author nameka inaan oo noo bedelmay oo default ahaan oo Jamaal Xasan u qaatay enter aan dhehna waxaad arkaysaa defaultka oo applicationka oo markii packageka oo cuyub markii noo sameynayo inuu magacaaniti inuu ku yani la soconayo anagoo waxna weydiinin just already magacaas ayaan gelinay iyo waxaan sameyn doonaa insha Allah license-ka ayaan bedelaynaa labada shay oo badnaan dadka jecel yihiin waa cuyub inuu wax u sameeyo set ayaan dhehna markii waxa rabtid inaad wax bedeshid oo default-ka rabtid inaad ka bedeshid set ayaa dhehaysaa bacdeen init aad dhehaysaa bacdeen calaamadan rigmadaasid bacdeen license aad ku qoraysaa license waa inaad mamar baa aniga license mamar baan qaldaa markii saas ku qortid bacdeen labadan calaamad ayaad waxaa gelinaysaa MIT because badnaa wuxuu ku imaadaa ISC aa ku imaadaa MIT intaan dhehna isla markii waxa isbedelo oo okay yahay saasaa arkaysaa laakiin badnaan aniga mar labaad inaan qoro get ma markoo waxaan sameeyaa npm aan dhahayaa bacdeen waxaan dhahaa config aan dhahayaa edit aan dhahayaa editka isla markii inta dhaho waxa ii soo baxayo pop upkan oo notepad-ka ah waxaan arkaynaa inuu ii sameynayo magac init author name Jamaal Xasan iyo license inaan bedelo MIT inuu yahay so anigoo isticmaalin getkanit because getkanit hadda waxa u baahan haddaan daaro inaan ogaado inaan license bedelay waxaan dhahayaa npm config get init sida u qoray meesha aan dhahay setne get aan dhahayaa license-ka ma siinayay sida hadda kasoo qabo waxaa laga yaabaa inaa magaciisa dhahdeen niyo magaciisa natusi camad hope inaan magaciisa dad qaaraa jiro ilaahay amarkiisa oo dhahayaan natusi gedaan dhahayaa MIT midda saas weeye marka hadda waxaan sameynayaa npm aan dhahayaa bacdeen init calaamada yes aan dhahay enter aan dhahayaa isla markii wuxuu default-kiis wuxuu arkay npm folderka inoo siiyey versionku halow naga dhigay laakiin wuxuu naga bedelay oo always oo arkayna Jamaal Xasan wuxuu arkay magaciisa magaca default magaca oo authorka iyo license-ka always markasto Jamaal magaca aad u bixisay ayuu ku noqonaa cuyubsis ayaa u sameynaysaa hadaa caadi ahaan hada in case
dhahdiniyo in yar waxaan u baahanahay inaan bedelo main indexka waxaan rabaa inaan ka dhigo sida app ama ma markood dad qaarkood server dhahaya waxay rabaan meesha ku qorayaan saas waa u bedeli kartaa marka sidaan waa isticmaali kartaa hadda waxaan insha Allah sameynaynaa in case haddaa oo dhahdiniyo waxaan u baahanahay magaciisa maribi authorkan iyo Jamal Hassan kusoo bax default kiisna kusoo celiyaa rabaa haddaa dhahday hortku aan delete gareey kan delete aan dhaho kan clear aan dhaho default kiis markaa kusoo celinaysa npm aan dhehaynaa config ayaan dhehaynaa bacdeen delete ayaan dhehaynaa delete markaan dhahno markaas waxaan taargareynaynaa magaca oo sida oo yani get is set markay isticmaalaya init author ayaan qorayna because waxaan baana authorkaan rabnaa mugtahay inaan delete gareyno bacdeen nameka muu baandina magaca oo qofka magaca inaan ku qorto magaciisa ku qor just that's it halaan ka bacdi intaad dhahdid isla markii hadduu okay waxaa arkaynaa in wax la delete gareeyay laakiin waxaan eegaynaa insha Allah aan copy aan dhahno because waxaan eegaynaa inuu magaciisa get meeshaan get ayaan dhahaa maxaan ku qorayaa raal naqda anaa bowsiis waxa uu sameeyey raal naqda okay anaa waxba ii save gareeyay oo qalad ah copy okay waxaa ahayd inaan saas u get aan dhahayo marka get waxaan eegaynaa muxuu meesha maxaa ku jiraa enter daan dhaho wax dhan ii soo bixin that means waa delete gareeyay so even xataa haddaan npm dhaho oo config dhaho edit dhaho enter dhaho waxaa iga baxay magaciisa magaciisa namekiina aan delete gareeyay oo iga baxa daarid caadi ahaan inta kan haddaa dhahdid oo delete ka saartid oo save dhahdid bowsiis ahaan wax kasto wuxuu usoo noqonayaa magaciisa sidii defaultkiisa laakiin markoo haddaa u baahan tahay no caadi ahaan npm oo caadi ahaan sida hadda oo config oo isticmaalayn delete dhehino waa inaad taarget gareysaa sida hadda u taarget gareynay magaca waa inaad u taarget gareysaa license that's it internet dhehina that's it haddaan oo hadda dhaho npm dhaho init aan dhaho yani bogsis wax uu sameeyo isla markii fiiri waxa uu ka bixiyey magacii oo aniga defaultkii ahaa Jamal iyo licensekii MIT ahay uu ka bixiyey sidii hore ii soo celiyey ii soo noqday marka hadda waxaan insha Allah sameynay set iyo get iyo delete inaan barno marka videoga halaan ku soo jaraaya khayran dirjeenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh